subax wanaagsan dhegaystayaal waa isniin 7 bisha 8 sanadka 2023 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Sahre Ciidlo Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mida dowladda Soomaaliya oo cusboonaysiisay heshiis kalluumaysi oo hore loola galay iskaashato kalluumaysata oo laga leeyay dalka China. ilaa hadda laysan maana bixin waxaanu saxiixnay waxa la yiraahdo MAU ama isafgarad laysanku waa la soo dalbadaa marka la soo dalbadana procedure dheer uu maraa oo ay ka mid tahay maraakiibta soo dalbatay laysanka in la baaro la ogaado markabkan inuu sharciga dalka Soomaaliya waafaqsan yahay in kale inuusan jariif ahayn inuu yahay maartay markab aan dambi hore u galin. waxaa kaloo aad maqli doontaan qaar ka mida dadka ku dhaqan waqooyiga bari Kenya oo ka cabanaya sicir barar iyo dhaqaale xumo. xaaladii aad isu bedeshay annagu markaa xaalad cakar ku jirnay oo mucashada ay kor jirtay sicir barar baahsan u jiray iyo waxaad moodaa arrimihii iyaga inay si laba laameen markaan doorasho ka soo baxnay bishii aad moodaa in arrimihii ay sii bateen. qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mida doonyo ay saarnaayeen tahriibayaal Afrikaan ah oo ku qarraqmay badaha dalka Talyaaniga. dad ku dhintay kuwa la soo badbaadiyey iyo kuwa weli la raadinayo ayaanu warbixin idinka haynaa. qodobadaasi iyo kuwo kale waxaa ka soo hormari doona warkii dunida. mas-uuliyiinta haatan xoogga kula wareegay dalka Niger ayaa sheegay inay xidheen hawada sare ee dalkooda tan iyo inta amar dambe ka soo baxayo sida ay sheegeen bayaan ka soo baxay Axaddii shalay. tallaabadan ayaa loo malaynayaa inay sababtay cabsi ay militariga dalkaasi ka qabaan in ay weerar kaga yimaado dhinaca cirka ahi wadamada dariska la ah ee ku bahoobay ururka loo soo gaabiyey magaciisa ECOWAS oo dhowr jeer oo hore ay mas-uuliyiintoodu u soo direen digniino ku aadan in madaxweynihii la doortay xilka dib loogu celiyo. afgembiga ay qaar ka mida ciidamada dalkaasi Niger ay xukunka kaga tuureen madaxweynihii dalkaasi sida dimuqraadiga loo soo doortay ayaa noqonaya afgembigii 7aad ee ka dhaca dalkaasi bartamaha Afrika dalkaasi amaba dalalka ku yaala bartamaha iyo galbeedka qaaradda Afrika muddo 3 sannadood gudahooda. dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa baabuur nooca dagaalka ah qalab militari iyo saanad kale oo ammaanka lagu ilaaliyo u diray dalka Chad. wadanka Chad ayay sheegeen in ay ugu direen saanadaasi militari si ay uga gaashaantaan amaba ay uga hortagaan dhibaatooyinka ay ku hayaan argagixisada iyo qalalaasaha ka jira wadanka Niger oo laga yaabo inay uga soo gudbaan dhinaca xeebta saaxil iyo weliba xuduudka ay wadaagaan. wakaaladda wararka gaarka u ah dalkaasi isutaga Imaaraadka Carabta ayaa lagu baahiyey qoraalka sheegaya in dowladda Imaaraadka Carabta ay qalab militari u dirtay dalka Chad. sidoo kalena waxaa lagu baahiyey sawirro muujinaya baabuur kuwa dagaalka ama militarigu isticmaalaan oo lagu xardhay calanka wadanka Imaaraadka, calanka Chad iyo weliba muuqaalo kale oo muujinaya wadankaasi Chad ee saxaraha ku yaala, kuwaasi oo la sheegay inay tahay saanad aad u muhiima marka loo eego dhinaca ammaanka, ilaalinta xuduudaha iyo weliba ka hortagga argagixisada iyo haddii ay dhacaan dagaallo ka soo gudba dhinaca xuduudka amaba kacdoonno gudaha ka dhaca. intaasi dhegaystayaal waxaa ku eg warkii dunida. haatan aynu gudagalno. subax wanaagsan iyo arooryo suuban ayaanu idin leenahay. aynu ku bilownay dowladda Soomaaliya ayaa cusboonaysiisay heshiis kalluumaysiga ah oo hore loola galay iskaashato kalluumaysata oo laga leeyahay dalka Shiinaha laguna magacaabo Chinese Fishing Corporation. heshiiskan oo markiisii hore la galay dabayaaqadii sanadkii 2018 ayaa dhammaaday sanadkii hore. waxaana uu ogolaaday in maraakiibta kalluumaysiga ee Shiinahu ay liisan amaba ogolaansho ka qaataan dowladda federaalka si ay u kalluumaystaan xilli cayiman una qabsadaan kalluun gaara. faahfaahinta heshiiskan oo la shaaciyey shalay
ayaa haaruun macruuf waxa uu ka wareystay wasiirka kalluumaysiga ee dowladda federaalk soomaaliya axmed xasan aadan. walaal waxa weeye saad ogsoontihiin soomaaliya waxay doonaysaa ama u taagan tahay xukuumadda in laga faa'iidaysta kheyraadka dalka nooc kastoo ay ahaadaan dadka soomaaliyeedna sundi runtii looga faa'iideeyo xilligan adag ee lagu jiro islamarkaana kor loogu qaado dalka dhaqaalihiisa iyo maaragtay horumarkiisa. marka su-aashaadi weydiisay runtii nasiib wanaag heshiis cusub oo maxay ahayta ama shirkado cusub ma ahan. shirkadihii hore u jiri jiray ka kalluumaysan jira dalka ayaanu dib u galnay, heshiiska dib ugu laabanay, waxna ka bedelnay runtii, waxna ku maaragtay ku darray. marka iyagun baynu u cusboonaysiin hadda markaan ayada ah. waa gartay. maxaa faa'iida ah ka soo gelaya waddanka? maxay iyagu qaadanayaan oo kalluuna? haruun su-aashaas muhiim wey dadku inay fahmaan oo loo baahan yahay. sida aad ogsoon tihiin ama dadka kalluumaystada ay yaqaanaan, waxaanu leenahay kalluun xilliyeed ee soomaaliya 2 xilli soo mara maxay ahayto sanadkii. kalluunkaas oo loo yaqaana nooca tuunaha. kalluunka waa nooc guuro oo kalluun guuraha, macnaha waxa loola jeeda safra oo baddaas Indian Oceanka iyo Mediterraneanka iyo badda cas intaba isu mara. sidaasuu xilli ku noqdaa, xillina ka maqan yahay. kalluunkaas ayaa dowladaha ku yaala maxay ahayto Indian Ocean dhaha oo dhan ay ka faa'iidaystaan. waxaa jirta ayadoon ka tirsannahay oo layihahda Indian Ocean Tuna Commission oo Soomaaliya xubin member ka tahay. marka kalluunka haddiinu anagu qabsanana waynu ka faa'iideynaa, haddaynu qabsan weynana wayna dhaafaya. marka kalluunkaas nuuca loo yaqaana tuunaha, noocyada tuunaha ayaa lagula heshiiyaa inay qaataan ama ay maaragtay ay laysan loo siiyaa shirkadaha noocaan. maxay bixinayaan sanadkii ama 6 bilood ama 3 bilood? hadafku ma ahan in horta waxaan rabaa inaan ku celiya halkaa. hadafku ma ahan fiiga laga qaadayo maraakiibta kalluumaystada. hadafku wuxuu yahay in loo gudbo marxalad ah in Soomaaliya infrastructurekeedii ama kaabayaasheedii kalluumaysiga dib u soo noolaadaan. saa ogsoontihiin waxaanu lahaan jirnay maraakiib kalluumaysi marka horena ku bilaabatay si wadaag ah, marka dambena qaar inaga aan leenahay aanu yeelanay. waxaa jiri jiray long time dowlada aynu siino license oo maaragtay ka kalluumaysta kalluunka noocaan kala qaato. fiiga waxa weeye sida ay loo xadiday tariifadii loo sameeyey ayay bixinayaan. waxayna ku xiran tahay tanijka iyo qaabka markabka nuuciisa kalluunka qaadanayo. imise markab baa hadda loo saxeexay ama loo cusboonaysiiyey qandaraaska laysanka? walaal horta ilaa hadda laysan maana bixin. waxaanu saxeexnay waxa layihahda MAU ama safgarad. laysanku waa lasoo dalbadaa. marka lasoo dalbadana procedure dheer u maraa oo ay kamid tahay maraakiibta soo dalbatay laysanka in la baaro, la geliyo maxay systemka haddaan ku sheegay OITC ay leedahay, la ogaado markabkan inuu sharciga dalka Soomaaliya waafaqsan yahay in kale, inuusan jariif ahayn, inuu yahay maaragtay markab aan dembi hore u gelin, inuu yahay tanajkii lagu heshiiyey markab gudan karo, inay shabaagtiisa iyo qalabka ku qabsanaya yihiin kuwa sharciga dalka aana diidanayn. saad ogsoontihiin March 16 bishii March waxaa la baasiyey sharcigii kalluumaysiga dalka oo dib loo hagaajiyey, aad iyo aad loo casriyey, labada aqalba loo maray. marka waxaasoo dhan baa laga eegaa. marka kadib ayuu waxa weeyaan markabka bixiyaa, bangiga dhexe ku shubaa lacagihii loogu talagalay marka lagu heshiiyey, kadib ayuu laysanka qaataa markuu intaasoo shuruudaa soo mara kadib. marka imise markab baad diyaar u tihiin ama doonyood inaad laysan siisaan? ma tiradu waxay ku xidhan tahay qofkii shuruudaha soo buuxiyo ama markabkii shuruudaha soo buuxiyo oo kasta miyaa la siinayaa laysanka? hadda Haarun heshiiskan number lagu qoray oo lagu heshiiyey ma jiro, laakiin anagu baa xadidi doonaa inta ay noqonayso. waxay ku xiran tahay sida loo soo dalbado iyo sida anagu laftigeeda aan maaragtay baahi ugu qabno inaan qaadano license. heshiiskii hore 31 markab buu siinayay ogolaa laysanka. ma inaad ka badisaan baa rabtaan mise ka yaraysaan?
annaga 31 iyo maxay ahayd iyo 30 iyo wax ka badan iyo wax ka yar inta waa suuragal. waxaa laga yaabaaba ina aadada helin number adiga kugu filan oo maaragtay kaasoo dalbado. waxaa ogsoontahay heshiiskan intaan la gelin 2018kii dad public buu ahaa. hadda laftigeeda waxaanu furnay cid kasta oo dalbanaysa inay meeshan maalgashato. baahida taalla ee markaa adiga aad suuq aad hesho bay ku xiran tahay. marka anagu hadda waxaanu leenahay intii aan u baahannahay oo laisla afgarto inaanu sax noqoto ayaynu qaadan doonaa haddii la yidhahdo. aad iyo aad buu mahadsan yahay. kaasi wuxuu ahaa wasiirka kalluumaysiga ee Soomaaliya Axmed Xasan Aadan oo waramayay Haaruun Macruuf. dhegeystayaal waxaa naga xusuusinay in waraysigaasi oo intaasi ka dheer aad ku dhegeysan doontaan idaacadaha iyaga maanta ee soo socda. shacabka gobolka waqooyi bari Kenya ku dhaqanaya cabasho ka muujinaya sicir barar la sheegay inuu ka jiro dalkaasi, islamarkaana ay ganacsato badan oo ay dhaqaale ahaan ku tiirsanaayeen soo wajahday dhaqaale xumo. wariyaha VOA ee Gaarisa Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray. shacabka Kenyaanka ee gobolada waqooyiga iyo guud ahaan dalkani Kenya ku dhaqanaya la daalaa-dhacayo sicir bararkii ugu weynaa ebed soo maro. xaalado kala duwan ay dadku sheegayaan inay haatan wajahayaan, noloshuna aad ayay ugu sii adkaanaysaa kadib markii isbedelo lagu sameeyey miisaaniyadda qaranka dalkani Kenya, taasoo xisbiga mucaaradka dalkani Kenya iyo weliba dadka inta badan arrimaha dhaqaalaha la socda ay dhaliil u soo jeediyeen hanaanka dowladda madaxweyne William Ruto ay u hergelinayaan dhaqaalaha dalkani Kenya. magacayda waxaa la yidhahaa cabdirashiid axmed maxamuud. xaaladii aad bay isu bedeshay. annagu marka hore xaalad cakara ku jirnay oo mucshada ay kor jirtay, sixir barar baahsan uu jiray, ayaa waxaad moodaa arrimihii iyagaah inay sii labalaameen markaan doorasho ka soo baxnay bishii sideedaad. aad moodaa in arrimihii ay sii bateen, beecsharadii hoos u dhaca ku imaaday, tukaamadii maanta waa la iska dhex fadhiyaa, wax ganacsi ka socda male, wax soo galaa male. maxaa yeele ummaddii maaragtay alaabta la gadan la'yahay. beecsharadii maad way lawday. dad badan oo maaragtay ganacsato ahay oo tukaamo lahay ama kaalimo shidaal lahay ama hardware lahay kudi waxaad moodaa beecsharood inay xireen oo ay kaceen. dad qaar wajeer joogay ganacsiga halaabay waxaad moodaa inay badasheen meel kale ay aadeen, iska carareen, qaar bay iska xireen. waxaasoo dhanna waxaa keenay sixir bararka, weliba waxaa keenay shidaalka kor u kacay. dadka gobolada waqooyiga bariya dalkani Kenya ayaa waxay rajo fiican ka muujinayeen hadalla dowladda ka soo baxayo in xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya la furayo. waxaana haatani soo ifbaxaya qaylidaan shacabku ay u darayaan dowladda, kaasoo in xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya la furo si dadka ku dhaqan gobolada waqooyiga ay uga soo adeegtaan dalka Soomaaliya la dariska ah. marka dowladda haddii ay maanta noo furto xuduudka, waxaa waay arrintaa waa arrin fiican, waana soo dhaweynaynaa. ganacsiga wuu ficnaanay oo maaragtay alaab fiican, alaabta waa raqiisi, alaabta hoose noogu dhici, dadweynaha ganacsiga kor buu u kacayaa. dowladdana waa dakhli helaysaa oo waxay helaysaa dhaqaala. maxaa dowladdan waxay boqolkiiba 80 dowladda waxay ku socota waa canshuur. dowladdan canshuur fiican ay maaragtay helaysaa. laakiin hadda waxaa dhacday arrintii iidaheed dowlad inay dib u joojisay oo haddana la yidhi maadaama amniga uu haddana sii xumaanahaya, dowladda arrinteeda waa joojisay. marka dowladda waxaan ka codsanaynaa say hore ugu dhawaaqday oo u tiri xuduudada waan furaynaa. dowladda sida u dhaqsiyaabda xuduudada inay noo furta. amni darrada ay sheegayeen oo leeyihin amni darrada aan u joojin arrintaa hakadoo gale oo sabab ay tahay amni darrada hakad loo geliyo. dowladda waxaan rabnaa arrinta iyada waajibaa saaran xuduudka inay noo furta oo ganacsiga uu noo socda, annagana aan helnaa alaabta ka imaanaysa Soomaaliya dekada Kismaayo, iyagana ay helaan alaabtanada Kenya ka tagaysa inay helaan xagga maaragtay aan ganacsi isdhaafsano, beecshirada ay fiicnaata. dowladdana waajib ayuu saaran yahay ammaanka inay sugta. dowladdeena Kenya dhaqaalaha haysta ku filan, ciidan ku filan waa haystaa, kan gudaha iyo kan dibadda. marka waxaan rabnaa dowladda xuduudka inay noo furta. ganacsato fara badan oo goboladani ka shaqaynayay ayaa haatani hantidoodii hoos u dhac ku yimid, halka qaar kalena ay xireen goobihii ay ka shaqaysanayeen. mugdi fara badanna waxaa soo gelaya in boqolaalkaasi haatan xaaladaha dhaqaale ay ku dambeeyaan ay khatar gelin karto muwaadiniin Kenyaan oo goobahaasi ka shaqaynayay noloshana ka raacanayay. anigoo Suldaana Cabdi Xuseen leedaha oo suuq mujiinkan ka shaqaysto oo ma aragtay waa ku roon yahay oo meesha maciishada ay ciriiri nugu tahay.
ilmihii waxaan iskuul oga baxsanna aan lahayn oo ma aragtay qof ilmihiina iskuullihii markay soo bogaana wax noo shaqayna ay jirin nin kastaa goolfeeda hadduu u qabin ma aragtay nin kastaa uu leeyim kasaysa haddaa goolfeeda aad qabin waxba ilmihii shaqa aan wala qoraynin iskuullihii soo bogaan kusoo rafaadna ilmihi ilaahay fiiski uu dhib nagu yahay marka haddana xuduudiyihii nagala xiray. maxamed faarax shire v o w Garissa. subax wanaagsan dhegaystayaal ciidamada ilaalada xeebaha talyaaniga ayaa sheegay inay heleen meydadka 2 qof waxaana ay sheegeen in lasoo badbaadiyey 750 qof oo muhaajiriina kuwaasi oo laga helay xeebta jasiiradda Lampedusa ee dalka talyaaniga ilaa 30 qof oo kale ayaa la sheegayaa in la la'yahay oo weli lagu raajoogo in dhimasho ama nolol midkii lagu soo helo. wariyaha VOA qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada London. ciidamada ilaalada xeebaha talyaaniga ayaa sheegay in howlgalka sabata-bixinta ee koonfurta Lampedusa adkayd 2 doonyood oo qarqabina ay ka soo shuraacdeen xeebaha Tunisia. qoraal ay soo saareen ciidamada ilaalintu ayay ku sheegeen in meydadka 2 qof ee la helay ay yihiin hooyo iyo ilmaheeda oo jir ahaa asal ahaana ka soo jeeday waddanka Ivory Coast. waxaa kale oo la sheegayaa inay jiraan meydad kale oo iminka la helay. dadka la badbaadiyey qaarkood ayaa sheegay in doonyaha midkood 48 qof halka doonta labaadna ay la socdeen 42 qof. dadka badbaaday iyo 2 qof ee meydka ah ayaa laga soo helay meel cabir badeedka u jirta 23 mayl koonfurta galbeed ee jasiiradaasi Lampedusa. xilliga doonyuhu degayeen ayay bad u kacsanayd sida lagu daabacay wakaalada wararka ee Reuters. wararka dadka la badbaadiyey oo marar kala duwan soo baxay ayaan weydiiyey Sakariye Maxamed Cali oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada Rome ee dalka Talyaaniga. xaqiiqdii wakaalada wararka ee ANSA waxa ay xaqiijisay ama ay qortay dadka la soo badbaadiyey inay yihiin in ka badan 34 qofood waxayna ahaayeen dadkii ku xayirnaa meel jamal ah oo jasiiradda Lampedusa marka ay usoo dhawaadeen ay dadkaani shilka meesha ku galeen 36 saacadood ay ku xayirnaayeen jamalka dushiisa. dadka la la'yahay hadeertani waa 30 qof wax ka badan. waxay kaloo wakaalada wararka ay sheegtay in xaaladan ay tahay mid aada u cakran islamarkaana badda ay kacsaneyd xilligii dadka lasoo badbaadinayay qaarkoodna ay ahaayeen dad haween iyo dumar ah. 57 qof ayaa marka la xaqiijiyey. qofna dumar ayay ahayd qofna wuxuu ahaa canug. 2 qofood ee meydkoodii kolka hore la helay sida ay sheegtay hay-adda IOM ee arrimaha qaxootiga qaabilsan. marka ugu horeysay ama doontii ugu horeysay waxaa saarnaayeen 48 qofood. 45 ka mid ah waa la badbaadiyey. 3 ka mid ahna waa la waayay. marka waa doontii marka ugu horeysay ee 34 kolka hore lasoo badbaadiyey waayo jamalka ayay cogsanayeen qaarkoodna baddi ayaa laga soo saaray. doontii labaad marka waxaa saarnaayeen 42 qofood oo ah dadkan sabsaxariyaanka ah ama kasoo jeeda wadamadan Cameroon iyo Burkina Faso iyo Mali iyo Gambia iyo Senegal. waxaa marka ay ahaayeen dadka ugu badan ee doonta labaad ee ku qalibantay. madaxa booliiska gobolka Emmanuel ayaa sheegay sida laga soo xigtay warbaahinta dalka Talyaaniga in dadka xilligan u ogolaaday inay doonyahaasi soo raacaan dadka muhaajiriinta ahi ay yihiin dad aan naxaynin. dowladihii Talyaaniga soo maray muddooyinkii ugu dambeeyey ee ay dowladda Giorgia Meloni ku jirto ayaa dhammaantoodba waxa ay bedeleen shuruucda muhaajiriinta sida aan waafaqsanayn sharciga dalka ku yimaada. Sakariya ayaa sharxaya xeerarkaasi la bedelay. wax ka bedelka sharciga socdaalka iyo maangeliyadoonka ee Talyaaniga ma ahan wax cusub ee hadda soo bilowday. waa wax macnaha soo jireen ah islamarkaana dowlad walbo imaado waxay isu daydaa inay wax ka bedesho. hadday noqon lahayd midka xisbiga mayalka adag ee midigta ama hadday noqon lahaayeenba kuwa sinisterada lagu tilmaamo ama bidixda ay dimuqraadiga ah. cid walba waxay isku daydaa inay wax ka bedesho si ay cod ay bulshada ama siyaasadda Talyaaniga ay ugu hesho. sharcigan hadda kutro lidiga ku ah ajaanibta ama soo galootiga wuxuu markaa soo baxay sharciyan bishii 5aad dabayaaqadeedii bishii 5aad ee May
bishii 6aad codaynteedii si aqalka dhexe iyo kansare intaba way soo wada mareen oo macnaha waa la ansixiyey. arrintan marka wax weyn ayay ka bedelaysaa, saameyn weyn ayna ku leedahay muhaajiriinta, iyadoo marka la samaynayo macnaha xakameyn ballaaran. waxyaabaha marka bedelkan la sameey maxay tahay marka ama maxaa ka mid ah? kow, furitaanka xeryaha marka loo yaqaano centri di prima accoglienza, shantaro waaweyn hotspot loo yaqaano ee dadka lagu soo dhameynayo oo badan in la furo, taasoo marka xakameynaysa ama suurtagelinaysa in dadka aysan helin project di accoglienza, in aysan helin sharci wanaagsan, islamarkaana dadka soo dhaweyn kara inaysan helin. in la furo xeryooyin loo yaqaano centri governativi di prima accoglienza, xeryaha dowladda maamusho kaas ama prefecturada hoos tagto, wasiirka arrimaha gudahana uu kontroolayo, iyo in la sameeyo macnaha horudhac xarumo oo ay noqon karaan wadamada dadka ay ka soo gelayaan, hadday noqon lahay tunisia ama libya. libya hadda dagaal waxbaa ka socdo, suurtagal ma baahanbo, balse waqtiyadii ugu dambeeyey dowladda talyaaniga waxay heshiis iyo wadahadal xoog iyo taageeridba u haysaa dowladda tunisia si dadka halka ka soo gelaya loo xakameeyo. maalmihii ugu dambeeyey sida lagu daabacay wakaaladda wararka Reuters, muhaajiriin ka badan 2,000 oo qof ayaa soo gaadhay jasiiradda Lampedusa kadib markii ay soo badbaadiyeen doonyaha ilaaleeya xeebaha Talyaaniga iyo hay-ado samafal ah, iyadoo ay dabaylo xoogani ka dhacayeen jasiiraddaasi iyo guud ahaanba badda Mediterranean-ka. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London. VOA Washington ayaad nagala socotaan. subax wanaagsan ayaan idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. mid ka mida qodobadii wararka ugu waaweynaa haddii aan idiin dulmaro, mas-uuliyiinta xukunka dalka Niger xooga kula wareegay ayaa sheegay inay xidheen hawada sare ee dalkaasi tan iyo amar dambe inta uu ka soo baxayo, sida lagu sheegay bayaan ay axaddii shalayta soo saareen. tallaabadan ayaa loo malaynayaa inay sababtay cabsi ay militariga dalkaasi afgambiyey ay ka qabaan in weerar xagga cirkaahi kaga yimaado wadamada ku bahoobay ururka ECOWAS, oo la sheegay in dhowr jeer oo hore ay u soo direen digniino ay doonayeen in si nabadgelyo ah lagu xaliyo, madaxweynihii dalkaasina xukunka lagu soo celiyo, hase ahaatee aan cidi dheg jalaqu siinin. afgembigan qaar ka mida militariga dalkaasi Niger ay xukunka kaga tuureen madaxweynihii dalkaasi ee sida dimuqraadiga loo soo doortay ayaa noqonaya afgembigii 7aad ee ka dhaca wadamada ku yaala bartamaha iyo galbeedka qaaradda Afrika muddo 3 sannadood gudahooda. haatan dhegeystayaal, mid ka mida heesaha dabacsan